وشهدت المعمورة في محافظة الإسكندرية مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. Fires on the streets of a city in its fourth night of unrest. يعني اهتمامكم بهذا الأمر أمر يعني وكأننا يعني نقدم وكأننا لا نحترم الناس. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. inta badan waxay doodi ka taagan tahay yaa mas-uul ka ah oo sababa musuqmaasuqa misna kharibay waddanka. ma madaxda ayaa sabab u ah mise waa shacabka cidda mas-uuliyadda qaadaysa yaase hagaajiya oo wanaajiya waddanka. dad baa ku dooda in bulshada xumaantoodu ay sabab u yihiin madaxda, halka wanaagga bulshadana ay ka dhalato wanaagga madaxdooda, iyagoo eeda dusha ka saaraya madaxda, halka dhinaca kale ay iyaguna ku andacoodaan taa cagsigeeda, iyagoo idhaahdaa ugu horreynba madaxdu waa dhalaanka shacabka, waxa madaxdu ay ku dhaqmaanna waa wax ay ku barbaariyeen dadka ay ka dhasheen. sidaa daraaddeed shacabku waa kuwa qaadanaya mas-uuliyadda musuqmaasuqa iyo waxqaribka, maadaama carruurtooda ay ku barbaariyeen musuqmaasuq. fikrad ahaan waxaan u tixgelin karnaa labadan aragtiyo kuwa sax ah oo midkooda midka kale dhammaystiraayo, iyagoo haddana midkooda midka kale eedaayo, misna qof kasta aragtidiisa difaacayo, lana imaanayo sababo uu ku xaqiijinayo in aragtidiisa ay saxan tahay, kan kalena uu yahay kan eedda iyo mas-uuliyadda qaadanayo. taa oo adkeynaysa in doodda ay ka soo baxdo natiijo wax ku ool ah, misna ay sidaasi kusii socoto dooddaasi iyadoon wax natiijo ah laga helin. bal aan labada dhinac ka eegno aragtiyahan kala duwan, innagoo soo bandhigayna xujooyinka iyo tusaalooyinka ay la yimaadeen labadan dhinac, misna soo qaadanayna tusaalooyin cadcad oo dunida ka dhacay, sida madax sabab u ahaa in shacab xun ay wanaagsanaadaan iyo shacab sabab u ahaa in madaxdooda ay wanaagsanaadaan. magacaygu waa maxamed xuseen, kusoo dhowaada xalaqadeena maanta. dadka qabaa labadan aragtiyo ayaa kooxba waxay la yimaadeen aayado quraan, axaadiis, murti iyo maahmaah oo ay ku caddeynayaan in aragtidooda ay saxan tahay. ugu horreyn haddaan eegno dadka qaba fikirka ah in madaxda oo xumaataa ay sabab u yihiin shacabka, misna madaxda aanay mas-uuliyadda xumaanta lahayn, ayaa la imaaday mid ka mid a tusaalooyinka ugu cadcad, halka dadka qaarkooduba ay dhaheen waa xadiid ka sugnaaday rasuulka sallallahu calayhi wasallam, inkastoo in badan ahlucilmigu ay ku tilmaameen wax been ah ama xadiid daciif ah. orahda oo ah kayfamaa takuunuu yuwalli calaykum, sidaa tihiin madax ah baa hogaamiye laydinkaga dhigaa. waxaanu tixgelin karnaa orahdan in ay tahay mid saxan nuxur ahaan, balse loo isticmaalay in lagu bariyeelo madaxda, misna laga weeciyo in madaxdu ay yihiin kuwa mas-uuliyadda qaadanaya, lehna mas-uuliyadda musuqmaasuqa iyo burburka waddanka, mas-uuliyaddaasina qoorta loo suro shacabka. sidoo kale waxay leeyihiin in shacabku ay ka aamusaan iskana aqbalaan musuqmaasuqa ay ku dhaqmaan madaxda ayaa horseeday in madaxdu ay u adeegsadaan awoodda xukunkooda iyo hantidoodaba aalad ay ku hirgelinayaan siyaasad wax qaribta misna sababta burburka. waxayna halkan u soo daliishanayaan aayadda kariimka ah ee odhanaysa wakadaalika nuwalliya bacda aldaalimiina bacda, sidaa ayaan daalimiinta midba midka kale isugu saladnaa oo hoggaan kaga dhignaa. sidaa daraaddeed hogaamiyaasha musuqa iyo kharibka badan waxay u baahan yihiin bulsho iyaguna musuq badan, mana awoodaan madaxda in hoggaankooda musuqeed ay kusii dhex wataan bulsho wanaagsan, sababtoo ah way ka hor imaanayaan misna way la dagaalami doonaan ilaa xukunka ay ka ridaan. waana arrin run ahoo waxaad in badan arkaysaa xukuumadaha xumi in ay ku dadaalaan si ay bulshada u kharibaan misna dadnimadooda u dilaan, xitaa in ceebahooda iyo musuqmaasuqooda ay daboolaan misna u been sheegaan dadyooga. bulshada Mareykanka ayaana noqon karta tusaalaha ugu dhow ee arrinkan, waayo nin musuqmaasuq badan sida Donald Trump in uu xukunka ka qabto Mareykanka iyadoo ay caddahay cunsuriyadiisa, nacaybka ku jira iyo dhammaan fadeexooyinkiisa dhaqaale iyo kuwa anshaxeedba, ayaa haddana xukuumadda doorashada ee Mareykanka u ceeb qariyeen ninkan. waxay dabooleen musuqmaasuqiisa misna hoggaanka lagu sharfay, ummaddii Mareykankuna sacabka ayay u garaaceen. mid taageera musuqiisa iyo kuwa ka aamusa ayay ku koobnaadeen oo keliya. sidoo kale waxaa la mida afgembigii ka dhacay dalka Masar, sideeba macquul ku noqotay in la khiyaaneeyo shacab tiradiisu gaaraysa 100 milyan, misna ay ku fududaatay in xukunka laga tuuro madaxweyne sharci doorasho ku helay kursigiisa, xukunkana ay la wareegaan hoggaan military, halka inta badan shacabka reer Masarna ay ka aamuseen waxa dhacaya oo aynan xitaa isku dayin inay ka hor yimaadaan xukuumaddan musuqmaasuqa xukunka kula wareegaysa. dhibaatadeedna waa tan maanta ay wajahayaan reer Masar. Soomaaliya ayaana la mida tusaalahan oo kale, oo ilaa maanta ay lugaha kula jirta dhibaatadii ka soo raacday musuqmaasuqii xukunka lagula wareegay madax sharci ku timid, misna ummaddii ay afka ka xirteen waxa markaasii socday.
badankooduna madaxa ay u ruxeen misna u heeseen xukunka afgembiga kula wareegay waddanka. oo marka yaa leh mas-uuliyadda, ma shacabka mise madaxda, ama labadooduba way wada leeyihiin? mase horan karnaa in dhibaatooyinkaasi ku dhacaya ummadahan ay yihiin cuquuba alle kaga timid shacabka maadaama ay ka aamuseen gardarrada iyo musuqmaasuqa markaasi dhacayay? haddaan u gudubno aragtida labaad iyo dadka qaba in madaxda ay yihiin kuwa khariba ummadda iyo waddanka misna ay yihiin kuwa mas-uuliyadda musuqa qaadanaya, waxaa inta badan ay soo qaataan oraahda ah shacabku waxay ku diin yihiin madaxdooda maadaama madaxdu ay haystaan awood iyo hanti ay ku hagaan bulshada, amarkooduna uu ku hirgalo, iyagoo dhahaya fayruuska koowaadba waa madaxda oo ku dhaqaaqa arrimo musuqmaasuq ah. markay shacabku arkaan in madaxdoodu ay ku tamashaleynayaan misna arrimahoodii qaaska ah u adeegsanayaan hantida qaranka iyo awoodda xukunka, ayay iyaguna bilaabaan ku dhaqanka musuqmaasuqa iyo laaluush bixinta, ilaa shacabka dhan uu saameeyo musuqan, dhaqankooduna uu bedelo, ayna noqoto wax iska caadi ah ku dhaqanka musuqmaasuqa. hoggaanka iyo madaxda oo wanaagsanaadaa ayaa keentay in shacabkuna uu wanaagsanaado. hadday xumaadaan madaxduna, waxaa shaki la'aan ah in ay shacabkuna xumaanayo. sidee baad uga filanaysaa muwaadin in aanu musuqmaasuq ku kicin haddiiba uu hortiisa ku arkaayo kuwa isku sheegay in ay yihiin ilaaliyaasha waddanka iyo hoggaankiisa oo u dhaqmaya siday doonaan, musuqmaasuquna xalaal ka dhigteen? sidee baad uga doonaysaa muwaadinka in uu ilaaliyo hantida qaranka haddayba madaxduba aynan u kala socnayn hantidooda gaarka ah iyo tan qaranka? madaxdu mar waa nimco alla kaaga timid, marna waa naclad. wanaaggoodu waa waxa sababa in bulshadu ay wanaagsanaato. taa la midna bulshada wanaaggeeda waa waxa sababa in madaxdu ay wanaagsanaato. haddaan tusaale kooban aan u soo qaadano, taariikhda islaamka waxaa ka buuxa madax uu ilaahay sabab uga dhigay in ummad ay wanaagsanaato. midkooda ugu caansan waa khaliifkii Cumar bin Cabdilcasiis, kaasoo 2 sano gudahoodii dib u habeen ku sameeyey wixii 10 sano musuqmaasuq soo socday, isla markaana ku soo celiyey islaamkii suuraddii uu lahaa maalmihii ay khulafaa ur-raashidiin xukunka hayeen oo kale, isla markaana ahaa sababka wanaagga ummaddaasi oo ay faqriga iyo gaajada kaga baxeen, ilaa heer qofka wax sadaqaysanaya uu raadiyo qof baahan misna uu heli kari waayo siday u dhargeen ummaddii. sidoo kale haddaan tusaale u soo qaadano aragtida ah shacabka uu wanaagsanaado in ay sabab u yihiin madaxda in ay wanaagsanaato. maalin maalmaha ka mid ah baa Cumar bin Khataab wuxuu istaagay mimbarkii asagoo oranaya, muslimiinay maxaad oran laheedeen haddaan madaxaygii u raariciyo dunida, yacni haddaan u jaleeco dunida? markaasuu madaxiisii hoos u raariciyey. markaasaa isla markiiba waxaa istaagay mid ka mid a raggii halkaa joogay, wuxuuna galka kala baxay seeftiisa, markaasuu yidhi waxaan oran lahayn sidaan, wuxuuna u tilmaamay in madaxiisa uu jaraayo. markaasuu Cumar yidhi, maanaad ila jeedaa hadalkaaga? ninkii baa ku yidhi, haa, adiga baan kula jeedaa. markaasuu Cumar radiyallahu canhu yidhi, alle ha kuu naxariisto, waxaan u mahadcelinayaa allihii ka yeelay ummaddan hoggaamiye u ahay qof haddaan qalloocdo itoosinaya. taa oo ina tusaysa in ummadda tan ee Cumar uu hoggaamiyaha u ahaa ay yihiin ummad wanaagsan, balse aanay ahayn ummad marnaba afka ka xirata xumaanta ay ku kacayaan madaxdooda. middaa oo keentay in Cumar ummaddiisan uu alle kaga mahadceliyo misna dhabarka u xirto si uu xaqoodii uga soo bixi lahaa. mid ka mid a abaarihii dhacay xilligii sayid Cumar ayaa waxaa la sheegay in Cumar radiyallahu canhu uu nafsadiisii ka xarim yeelay in uu quuto caanaha iyo subagga, beddelkooduna wuxuu quudan jiray saliidda ilaa midabkiisii uu isbeddelo. markay arrinkaa kala hadleen qaar ka mid a raggii ayuu yidhi, waxaan ku dhaartay magaca alle, lagama yaabo in aan dhadhamiyo subagga ilaa ay ka quutaan danyarta muslimiinta. mid ka mid a saxaabada ayaana leh, abaartaasi hadduunan alle naga dulqaadin waxaan maleynay in Cumar uu u dhiman doono walwal uu u qabo muslimiinta. alle wuxuu qur-aanka ku leeyahay, in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. alle ma beddelo xaalad bulsho ilaa iyagu ay beddelaan waxa nafaftoodii ahaaday. bal adigu ra'yigeed taageersan tahay? ma in bulshada xumaantoodu ay sabab u yihiin madaxda, halka wanaagga bulshadana ay ka dhalato wanaagga madaxdooda? ama shacabka ayaa ah kuwa leh mas-uuliyadda in madaxdoodu ay xumaato? hadday shacabku wanaagsanaadaanna madaxdu ay wanaagsanaan doonaan. fadlan igula wadaag ra'yigaaga kommentiga. sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad xushmayso ra'yiga qofka kale ee kaa duwan. haddayse jiraan mowduuc kale aad jeceshahay inaynu ka hadalno, ila wadaag. halkan ayaan kaga baxayaa muuqaalkan. fadlan haddii uu ku cajibgeliyey muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada, adiguna like garey. waanayu muuqaalka kan xiga. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.